Wiil ayaa waxa uu guursaday gabadh dhaqan wanaagsan, diin wanaagsan, labadaba Ilaahay siiyey, kana dhalatay qoys magac leh. Iyadoo la og yahay in ninkani uu ahaa nin wanaagsan, haddana waxa uu mar walba ku saamoobi jiray nin ka mid ah asxaabtiisa oo reer leh. Mar walbana wuxuu talo ka weydiin jiray saaxiibkiis arrimo badan kuna saabsan arrimaha qoyska ee u dhaxaysa qoyska gudihiisa. Ninkani nin xun ayuu ahaa, wax la weydiinayaa. Waxa uu u sheegay wadaadkan in la shaqaynta, caawinta gabadha iyo kala qayb qaadashada hawsha gurigu ay raganimadiisa waxyeelayso. Nacaskanna go'aanka ayuu qaatayoo xaaskiisa ma uusan caawinaynin. Mar walbana waa uu la fadhiisan jiray isagoo aan u sheekaynaynin. Haddii uu u sheekeeyana wuu ku qaylin jiray. Iyaduna mar kasta waxa ay isdareensiin jirtay wanaagyadii hore ee soo dhex maray labadooda, waxayna ilaawi jirtay xumaha uu hadda ku kacayo. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu ninkani u yeedhay saaxiibkiisii uu jeclaa iyo qaar kale si ay ula qadeeyaan. Subaxiina waxa uu guriga keenay wan biraysan. Gabadhiina wuxuu amar ku siiyey inay qado uga diyaariso martidiisa. La yaab aad u fara badan iyo indhafaygag ayay ku eegtay, waxayna u sheegtay inaysan aqoonin qaabka loo diyaariyo wanka biraysan. Guriga hooyadeedna inaanay ku soo baran bay u sheegtay shaqadaas. Waa uu xanaaqay isla markiiba, wuxuuna u sheegay inuu gurigoodii u celinayo, isdiyaari ayuuna ku yidhi. Waxay isku dayday inay xaaladdan ka beddesho oo ay dejiso, laakiin in meeli u caddahay meeli ka madoowe waa uu ku adkaystay. Markii uu wiilkii gabadhii gurigii geeyeyna, odaygii wadaadka gabadha dhalay oo nin alla ka cabsi badan ahaa waxa uu ku yidhi, alaabtiinii waatan waa laydiin soo celiyey. Isagoo oo dheeldheelaya ayuu wuxuu ku yidhi, gabadhiinnu ma taqaano wanka la soo qalay sida loo kariyo. Aniguna iyada dan kama lihi ilaa ay barato sida cuntada loo kariyo iyo xeerarkeeda. Sidaa daraaddeed haysta. Aabbihii xigmad ayuu ugu jawaabay, waxaana uu ku yidhi, aabbe nooga tag 2 bilood oo keliya, annagaa soo barayna wixii ayna garanaynin. Intaas kadib waad kaxaysanaysaa hadhowto. Gabadhii guriga reerkooda ayay iska joogtay. Ninkiina markuu ayaamo yar gurigiisa cidlada ahaa joogay, waxa uu dareemay khaladka uu galay, waxaana uu gudagalay inuu dib xasuusto qallafsanaantii uu kalgacaylka ku waajihi jiray, adaygii uu jileeca gabadha iyo wanaaggeediyo birigeeda ku qaabili jiray, dadnimo xumadii uu kula dhaqmay gabadha. Weliba markaasoo uu hubsaday saaxiibkiisii kula talin jiray waxa xun in xaaskiisii laga furay, sababtoo ah si xun ayuu ula dhaqmi jiray. Markii uu xaaskiisa u baahdayna ee uu dareemay cidladiina, waxa uu u diyaar garoobay inuu aado gurigii aabbaheed si uu uga soo qaado gabadhii isaga oo yaqaana qiimaheeda. Waa uu xishooday, waxaana uu naftiisa ugu sheekeeyey ciqaabta ugu badan ee ku dhacaysa inay tahay ballanta inuu sugo. Xilligii ballanta ayuu wuxuu u tegey odayga gabadha dhalay, isagoo ka doonaya inuu siiyo gabadhii. Intaan waalidku gudagelin sharaxaadda wixii ay gabadha bareen una sheegin wiilka, ayuu wiilkii warkii qaatay, waxaana uu ku yidhi, aabbo anigu 2 bilood ayaan cidlo joogay, 2 biloodna waxay igaga darnaayeen 200 oo sano. Waana aqoonsanahay inaan gabadha ka khaldanaa. Ka waran haddii 2 maalmood gudahooda aan go'aansaday inaan soo laabto oo aan gabadhii soo doonto, laakiin waa aan kaa xishooday iyo iyadaba inaan ka xishooday. Haddana muhiim ima aha inay wax baratay iyo inaysan waxba baranin. Keliya waxa aan doonayaa waxa weeyaan inay guriga ifiso oo guriga ku soo laabato, anoo weliba soo bartay axaadiistii nebiga ee ahayd Ilaahay uga baqa gabdhaha, u tudha quraaradaha, waxaa idinku khayr badan kii idinku khayr badan reerkiisa, anaana idinku khayr badan reerkaygana anaa ugu khayr badan.
waa lagu farxay warkaa uu siday wiilka dhallinyarada ahi. Gabadhiina waa la siiyey. Gabadhii waxay gurigeeda ku laabatay iyada oo faraxsan oo la yaaban isbeddelka culus ee ku yimid wiilka. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.